waxa maanta meesha la taagan yahay waa meesha laga hadlay oo wadada la soo maray siyaasiyan isku daynay war caqligu ha shaqeeyo yani caqliga macquulka ah ha shaqeeyo caqliga qaloocan yaanu shaqeynin war inta yaanay la yeelin kan yaan la yeelin wax kasta oo xumaan oo la sameey karay oo dalkan dagaal lagu geli karay maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo sameeyey guryahooda dad ku dil kuwa kale kheyr sharci ku xirxir kuwa la doortay oon la magacaabin doorasho ku yimid raacday kuwa la magacaabay iskaba dhaaf ayaga waaba muxuu ahay kasii fudud wax yani dalkan intaasoo dhan yaan wax kasii xun yaanay dhicin yaan la isdilin waxaasaa un lagu joogaa lagu waxaynaa inta hadda ay saaxiibada ay sheegeen oo dhan waxay ahayday maxamed cabdullaahi farmaajo walax uga dan lahay dagaal in lagu galo yaa tolhey inta la yidhaahdo qoryaha la qaatay ee la dagaalamay ah waa ka adkaysanay dadka soomaalida ka adkaystay ganacsataa ka adkaysatay shacabkaa ka adkaystay shabaabaa ku farxay oo ku bulaalay oo u bogay waxa aan soo marna horta muxuu ahay iyo dulqaadka laga muujiyey dadka soomaaliyeed guud ahaan ayaa dulqaadkaasna ku mahadsan gaar ahaan magaalada muqdisho dadka degan jidkaan ka xir gabadha foolanaysa yaan isbitaalka la geynin midda maxaan ku idhaha dhaawac ayaan la qaadin kii qarax ka dhacaa kii kaloo ka badbaada qaraxoo kasii cararaya xabad ha lagu dhufto yacni muxuu ahay ma garanayno wax oon ku sifan waxaan rabaa marka meesha marka warka saakay taliya saadiq john oo akhyaarta iga horreysana aad u jeclaa warka meesha uu muhiimka ugu weyn u kale waa maxay ciidanka qalabka sidaahay waxay mas-uul ka yihiin waxaa ka mid a oo ugu horeeya ilaalinta dastuurka ma aha keliya cadowga qoryaha sita inay ilaalinayaan bes ma aha ee dastuurka jamhuuriyadda ee dowladnimadu ay ku dhisan tahay ee kala dambayntu ay ku dhisan tahay ee raggan meesha jooga madax shalay soo aajiray madaxtinimada shalay fursadeeda siiyey ee maalintii dambe ka qaaday ee madaxweynihii naga dambeeyey farmaajo xil ka dhammaaday fursadda siiyey dastuurkaas waaye buuggaas yarkaahee buluugaa waaye buuggii haddii markaan iska diidno ku dhaqmi mayna haddaan dhahno haddee qaanuunkii oo jiqda maahano oo qof walba qofku ku xoog badan yahay hadila ha cuna ahayday taas waa waxa aan ka adkaysan oo diinay saadiq john saaka hadalkiis waa dhegeysateen wuxuu dhahay dastuurka ha lagu dhaqmo 40 sanaba maraa lees dooro jiray ha lees doorto war xun ma sheegin ninkaas qof ma cayn qof ma aflagaadeen qof aan dilaa ma dhihin qof kuma duulin wuxuu dhahay war dalkan dastuuruu leeyahay dastuurka ha lagu dhaqmo 40 sanaba lees dooro jiray ha lees doorto waqtigii waa dhammaaday baarlamankan meesha fadhiya waqtigii waa ka dhammaaday ma kordhin karo wada hadalkii iyo teendhadii ha loo noqdo meeshaasaa maslaxaddu jirtaaye taasaan garab joognaa waxa dastuurka khilaafsan o dhanna waa diidannahay mas-uuliyaddii la saaray oo uu u dhaarto kutubka qur-aan gacanta u saaray oo ka soo baxay maanta bini aadan waayo shalay ma qaldamay daraad ma qaldamay tii ka hore ma qaldamay laakiin waxa u dambeeyey mayd waa maxaa u dambeeyey kala sii sida soo ma warkiisii maanta u dambeeyey annagaan ka soo qaadaynaa ninkaasi dastuurka difaaciisa maanta hadduu dhintana u dhimana haddii la xirana oo u xisma hadduu ku guulaysana uu ku ammaanaan doona haddii alla yidhaha dadka soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaay intaasaa laga rabaa qof yay la dagaalin qof yay dilin qof yay u hiilinin mid yay ka hiilinin bas buuggaas yarkaa oon ku heshiinay waa wixii aan ku heshiino wada dhiganay kaasaa haddii qof uu iska sii jooga haddii laleeyahay lafsadeeda waa fikir aan isku nimaado aan ka heshiino aan dhahno madaxweynaha la doortahay hadda kabacdi waa iska sii joogi karaa laakiin markasta maxamed cabdullaahi farmaajo noqon maayo taas haddii lagu heshiiye xataa qaanuunka hore u shaqeeya gadaal uma shaqeeye markaas qofkii la doortay wixii ka dambeey haddaan dhahno boqoraan dooranay dalku waa boqortooyo muxuu ahay jaamac ama calasoba muxuu ahay boqor noo ah waa dhammaatay khalaas laakiin ma ku heshii karnaa ma isugu imaan karnaa ma isku ogaa karnaa aan baqanaba waa talo ragaa hore u yiri wixii lagu heshiiyaa dalkan ka soconaayo iyo wixii buugga ku qoran haddii wixii buugga ka qoran lagu kala ra'yi duwan ama la saxayna aan isku nimaado war aan ka heshiino war ha laga heshiiyo xilligii waa dhammaaday doorasho inay dhacday ahayd 4 sano waqti aan la haystay lama samaynin ma dhicin maanta ha laga heshiiyo bal waxa soo socda la samaynayo ninkii yiri gar allay leedahay ninkaasi waa saxanya saraakiisha ciidanka qalabka sidana waxaan leenahay waajibka ladinka raba intaas waa wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca dastuurka ha la dhowro mudaxilaadka ha la dhowro rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro rabitaankooda lagu xukumaayey qasab lagu xukumaynine rabitaankooda ha lagu xukumo
meeqa qoryo wadato qoryo la duufaysaa magaaladan xamar intaa joogteen soo martay oo Soomaaliya ajnabi bale meeshay ku dhamaadeen kulli waa la ogyahay maxamed cabdullaahi farmaajo ka noqo godkaas ha ku dhicin meel xun waaye wadadaas meel xun ay ku dhamaataa ha aadin soo noqo teendhada la sheegaya ku soo noqo dhax fadhiiso dadku maxaa rabtiin aniga ra'yigaanan qabaa idinku ra'yi miye dhah kala dood qancaso dadka boqoraan ahlay boqor ku qanci hadday lagaa qanco boqor noqo laakiin meeshaanaan meel villa Soomaaliya waxay villa ku tahay oo magac ku leedahay inay tahay sharciyad degaankii madaxweynaha sharciga ah ee dalka gurigiisii waaye ee darbiyadan waxba kama duwana iyo geedahan meesha ku yaal waxay ka duwantoo gaara ma jiro gurinin degan yahay waa maanta guri madaxweyne degan yahay maaha wiilasha Soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sidaa mar kale waxaan sidoo kale ammaanaynaa bogaadinaynaa ragga siyaasiyiinta ah ee mowqifkaas horay u qaata ayagana oo ay ugu horeeyaan labadaas dawlad goboleed ee Jubbaland iyo maxaan ku radaa Puntland ee mowqifka qaatay ee dastuurka ma dhamaadaha bas dastuurka sidoo faraha la yeelo aan ka heshiino mushkiladan noocan hor u soo dhacday inaanay mar dambe dhicin inaan rabnaa horay loo socdana waa rabnaa annaguna intaasaan soo taagnayn wadadaas waa wadada loo soo dhammaad doono maanta meel fiican nabad ah shaxshax aan joognaa wadada waa noo furanta aan qaadno annagoo daqaran dhiigu naga da'ayo shaatigu naga jeexjeexan yahay ceebaysan qoorta nalaga soo qabtay ee nala soo xeereeyey nala keenay yaanan wadada marin maanta on qurxannahay oon libisanahay nin walba taayigiis u xiran yahay wadada aan marno meel fiicanay ku dhammaataa maalin dhaweytaan waraysi idaacad siiyey waa sheegay waxaan dhahay villa Soomaaliya lagu shiri jiray annagu waagaan joognana waa lagu shiri jiray dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka meesha ku shiri jireen shanta dawlad goboleed ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka meesha lagu shiri jiray hadda bishii September lagu shiraay sanadkii hore maanta waa laga soo tagay Afisyoone ay joogtaa Afisyoone waa dhul Soomaaliyeed wali waa caasimadda jamhuuriyadda war waa la yaqaanaa waxaan horaa loo soo arkay maxamedow haddaad bofala fadhida adiga annagaa soo joognay waa la yaqaan meesha waxaas wadadaas muddo la soo galo meesha ku dhamaato waa la yaqaan berri kambaalay ku dhammaan waa ku celina mar kale maalin dhaweedna waa dhahay maanta meel fiican ay joogtaa dalka Soomaaliya caasimadda jamhuuriyadda ay joogtaa villa Soomaaliya ee meeshii maqaamka lahayd waa ka timiday xero ciidan ay maanta joogtaa iyo garoonka diyaarad iyay ka bixin berri ee boorsooyinka anagoo sii xirxiranayno oo sii soconno jaakadaha sii dhuuqsanayn yaa nala arkin oo sii soconno waniyaw dalka iyo dadka intaas kaama mudno uga tur baadil iyo karaama jab intaasa inuu gaaro dalkan ma mudno ummadan sharaf iyo karaama ay muujisay inay dimuqraadiyadda u taagan tahay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari karin cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari karay muujisay waa ku qanacday raaliyay ku ahayd maanta isku dayin inaad ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmaysee baawarka qoryaa lagu haysan karaa qofkii qorya badanaa haysanayo hortaa jiraa soo waayey yaa hortaa jiraa soo waayey lagaa hub badnaay lagaa ciidan badnaay lagaa dad badnaay xataa taageero caalami lagaa badnaay war waxaasi waa soo shaqay waayeen waa inteed jirtaa dhaga ma leedahay qalbi wax xasuusto ma leedahay indha wax akhriyo oo rikoodhkii hore madaxtooyada dhexdeedu yaallaa sidii loo dhaqmi jiray arkiifyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaaliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xeraysan yihiin ma wiilish inta u yeeratay bal heshiiska noocaasa warka noocaasa shirka noocaasa wixii ka soo baxay iyo wixii laga dooda hallay tuso minutiska yaalla ma dhihi kartaa maxamed caqliga ha kuu soo noqdo caqliguna ha taliyo walaalowda ha taliso qoray ma talinaayo qoray inaanu talin dadkan qiimo badan u bixiyaan mana tali karo waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadiqa lagu bedela la yiri maxaa lagu sameeyay waryaa hooy farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacal yaha gelin waa wiil yara tahay mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimrigaaga ka dhibna hadii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jire qolka dhiiqada ha la gelin nima ka baxay saake ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo iska mala darajada
maxaan ku yidhahday kii kale xuu ahay xijaar iskama leh darajada qaanuuna iska leh sharciyaa leh ay ku timaadaa ay ku jirtaa ay ku ixtiraaman tahay qof afkiis iyo rabitaankiis maaha darajada dalkan hore uu darajo kuu siiyey maanta meesha ay joogto meesheedii maaha ha ku dhumin waddadaas genaraal odowaa waa la leeyahay militarigaa lasoo dhaqaajinaa intaa laga keenaa kanaa laga keenaa genaraalow odowaayow wiilkeygiyow maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd ma aha saadiq john waddada uu furaa kuu furan waddo kale oo kuu furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad caamustad gurigaa gadaal u gasho xataa eedaysanaad tahay maanta waddada kuu furan inaad iscaddayso ood sheegto tiraa dastuurka jamhuuriyadda loo hoggaansamaa waaye karaamo iyo sharaf kaasay kugu jirtaa mid kale kuguma jirto dhammaan waa sida saraakiisha ciidamado dhan waa sida aniga xijaar iyo fahad waxba la hadli maayo laakiin waddadaasaa u furan sarkaal kasta oo rajo iska qabo waddadaasaa u furan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta farxaan iyo odowaa iyo ku dar muxuu ahay xajaarkiisa iyo kulli iyo inta ka hoosayso dhanna waxaan leenahay u caqli celiya wiilashiinna dhaldhalaalku yaanu sirin shalaa lagu hodmaa raga ku baaba'een ku magac beeleen ku karaamo waayeen ku sharaf beeleen war ha ku ceeboobina wiilashiinna u caqli celiya la hadla waddadaas qalloocan oo qaldan yaanay marin waa dhammaanteen waa wiilasheenna waa uga digaynaa waana uga caqli celinaynaa waana ka waaninayna intaas kadib waxaan rabaa inaan hadalkii macaay oo akhyaarta iga horreysay itir aan kusoo gabagabeeyo meesha loo dhammaa doono waa meeshaas bes inaan deg deg u tagno iyo annagoo nadiifa inaan tagno choice ama khiyaar ah waa leenahay khiyaarka kalena inaan daahno oo annagoo rifrifan aan tagno oo baahdilno karaamadii naga tagtay aan tagnane waa khiyaar kale ayadana waana wax la kala dooran karo xumaanta ragaa dooran karo laakiin annaga tan wanaagsanaan doorannay ayadaan u taagannahay waxaan leenahay yaanan degdegin wakhtigu waa sii socdaa ha laysku yimaado ha la heshiiyo doorasho ha la aado dimuqraadiyadda ha la xoojiyo rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro xukunka ilaahaa bixiya qofkii uu siiyaa leh qofkii kalena ma laha waddadii lagu maraayey oo lagu tegayana waddadaas la tilmaamay waaye taasaa furan waddo kaloo furan ma laha aad iyo aadaa umahadsan tihiin mar kale waxaan hambalyo u dirayaa saadaq waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha faraha badan ee la joogta ee la shaqaysay ee ilaahay hadda garbihiisa fadhida ee la qabta muxuu ahay ra'yigaas kuwa kalena waxaan ugu baaqayaa inay soo raacaan 12 abriil waa maalintii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waay waa u hambalyaynaynaa meel kastoo joogaan maanta waa maalintaas weyn oo macnaha leh oo maalintii ciidanka la aasaasay 71 sano miya 61 sano ay ka soo wareegtay waay booliiskaa horreeyey 61 sano ay ka soo wareegtay waay maalin weyn waay maalin taariikha waay inaa maanta au qof walba yiraa maalintii hambalyada ciidamada ay ahayd ayaan aniguna u istaagay dastuurka inaan ilaaliyo waxaan ku dabaaldegnay ilaalinta iyo kor u haynta dastuurka dalka maalintaa dhihi lahaydeen waaye dhaha allah tawfiiqdaasna allah idin waafajiyo hambalyana waa idin leenahay adika iyo xaasaskiina iyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu